السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسو دبادة Somali food recipe. maanta waxaa samaysaneynaa sawaayad ama jabati soo qof kasto u yaqaana samaysaneynaa. maxaan ku raahdaa waxaa u baahanahay maanta inaan isticmaalno burka cad. maxaan ku raahdaa sidoo kale waa isticmaaleynaa eedana wax yar oo sokor oo badneen si yacni ay u gaduudato jabati qurux badan oo soft ah kugu noqoto. waxaan u baahanahay maxaan ku raahdaa hadda weelkii soo qaadanay aan ku qasan lahayn cajiinkeeni. soo maxaan ku raahdaa waxaan ku shubanaynaa 3 koob oo maxaan ku raahdaa burka cad ah. ada hadaa rabtid maxaan ku raahdaa adaa yaqaana qiyaastaada hadaa rabtid 3-4 waxaa rabtid isticmaal laakiin si aniga hadda 3daas koob ay ugu filan. soo waxaan jeclaa aniga 2 maalin kadib sawaayad fresh inaan sameeyo maantay. soo wax harharaaya ma u baahneenbo ama maxaan ku raahdaa halkaas habeen lagu casheenayo kaliya inaan ka dhigana ama halkaas subax. soo waxaan ku darsanaynaa qaadada cuntada lagu cuno mugeedo kale oo maxaan ku raahdaa sonkor yar ah. maxaan ku raahdaa hadaa ka badisid hadaa sokorta ka badisid maxaan ku raahdaa waxay noqonaysaa jabatiga uu ka adkaanayaa. soo waa inaa wax yar oo sokor ah ku dartid wax yar. sidoo kale waxaa u baahanahay eedana in yar oo cusba badan ma isticmaalayna eedana inkastoo caafimaadka uu wanaagsan laakiin se wax yar aan ka isticmaalaynaa waa kaas intaasaan ka isticmaalaynaa cusbadayni. sidoo kale waxaa u baahanay inaan isticmaalno butter yar oo ku darsan doono hal qaadar ka isticmaali doona. soo bakeerigaana waxaan ku soo shubtay biyo qabow. soo waxaan ku darayaa biyo karkaraya si uu noqdo biyo diiran oo maxaan ku raahdaa sawaayad waxa waaye inaad ku isticmaashid biyo qandac ah. biyo qabow hadaa ku qastid wixii ka noqonaysa inaad muddo dhigtid. maxaan ku raahdaa butterkeeni hadana soo qaadanay meesha butterka isticmaal waxaa isticmaali kartaa saliid caday, saliid saytuun, saliid macsaro, maxaan ku raahdaa coconut oil. waxaa rabtaa adiga ku qusaysa isticmaali kartaa ma mid butter kaliya inaad isticmaasha. soo biyaheena qaadanay cajiinkeena hadda soo cajimaneynaa waa isku soo noqonaynaa kadib maxaan ku raahdaa waa arkeena sidoo cajiinkeena noqdo iyo waxa kale markaas aan isticmaalno. soo hadda waa soo noqonaa marka waqti ma hayno. sawaayad waxay ku fiican tahay in abaar la dhigo laga tago malaha 40 daqiiqo nus saac. laakiin ani maxaa sameynayaa microwave kan gelinayaa 30 second aan ku daarayaa. 30 hadaa ka badisid xasuusnaa way ka burku ka bislaanayaa. soo waa inaad 30 kaliya aa isticmaashid microwave ka gelinayna 30 second kadib maxaan ku raahdaa diyaar ay noqonaysaa waa maxaan ku raahdaa way noo soo baxaysaa karaal ahaada ilmo yar meesha soo dhax galay. maxaan ku raahdaa waa ka cajiinkiina hadda wuu isdhaxgalay. maxaan u maleysaa cajiin maanta dhan xashaysa ma fahamta maanta gacanta dhan asaas ku dhigaysa. soo marka machine hadaarta waa isticmaali kartaa mashiinka oo doolshada lagu sameeyo ama maxaa ku cajiinka lagu qasto hadaarta gacan waa isticmaali kartaa. soo marka hadda maxaa sameeynaa cajiinkeeni weelkaas aan ku ridaynaa waa daboolanaynaa adiga ilaa iyo 4 daqiiqo aan ka soo maqnaanaynaa waa u soo noqonay marka hadda shaqadii ugu muhiimsanayna hadda bilaabanaysa marka muhiimadii hadda inoo bilaabanay. maxaa sameynaynaa hadda marka cajiinkani soo qaadanay waa kala qaybsanaynaa. anaga hadda waxa u jareynaa 4 cad aan u jareynaa adi inta doontad u gooso. anaga 4 cad oo isla eg aan ka dhiganaynaa kadibna maxaan ku raahdaa waxa sameynaynaa waa fidfidin doona laba isku dul saali doona sida u sameynayno halkaas anaga la soconaysiin. soo marka hadda qaybta koowaad soo qaatay oo soo kuusay bura meesha ku daadinaya si yacni aysan iga dhagdhagin. hadaa bur marso meesha ama saliid marso meesha aad ku shaqaynaysid hadaa marsana cajiinka kaaga dhagaya ma fahanteen. midaada kalena sawaayada cajiinkeeda waa inuu adagna ahaanin waa inuu jilaac oo meel dhaxaad u noqdo faraha usan kaaga dhagdhagin. adeeg hadaa ka dhigtid maanta dhan adigana fidiskiisa ku daalaysaa burka ma ku kala fidaaya. soo jirta anaga hadaa rabna xataa hadda waa ku samaysan karay maxaan ku raahdaa gacanta xataa ku samaysan karay laakiin soo inta saliid yar meesha marsatid gacanta daarta ku fidanaysaa adoona qoriga xataa u baahneen. laakiin se qoriga waa midka ugu fudud oo lagu samaysto. xabada soo samaysanay tii kala soo samaysanay maxaa sameynaynaa hadda waxaa sameynaynaa butterka dhexda ka marinaynaa. butterka waa maxaan ku raahdaa subagiya dhexda ka marinaynaa. kadibna maxaan ku raahdaa waa isdul saaraynaa labadii xaba isdul saaraynaa. tan soo qaad midii kala saar ku sim
kabacdi waxaa soo qaadataa qorigii haddana dib usoo qaado maxaan ku rahdaa fidi haddana inta awoodaada fidi intaaba fidin kartid oo tabar u haysid fidi cajiinkaas si uusan si islaagin u fidiyuusan kaa kala dheeraanin muhiimadda waxaaba cajiinka inuu kula ekaado waa soo fidina hadda maxaa sameynaa haddana batar kala korka marinaynaa subag haddana korka marinaynaa subagaas markaa marina maxaa sameynaynaa geesaha kasoo laabaynaa maraa laabaynaa mar labaad marka saddexaad qaybta kale u geynaynaa waa kaas hadda batarkii aan wada marmarinaynaa si isla ega u wada marinaynaa batarkan waa mid oo guriga kuleylkiisa la anfaantay haamtan pressure waaye ada 2 saac ka hor le banaanka iska soo dhiga furniture ka soo baxso si uu kugu jilco kadib baaqul ku soo qaado qaadadaas ku qaraacaysaa wuu ku meelmaya hadda fursad ahaynin microwave ka gali asagan 20 second uu ku jilcaya kadib qaadada ku qaraac hadda waxa sameynaynaa dhinacaas aan ka soo laabaynaa haddana dhanka kala qabanayna waa ka laabaynaa waxa sameynaynaa qaybta kuwada soo qaadana subaga marinaynaa sirta halkaas ku jirtan waxa waa isku laalaabayna hadda uu u noqdo dabaqyo markaas u kala jirtay qaybo badan oo yeelanaya qaybta kala soo qaadnay waa ku daboolnay markaad hadda maxaa sameynaynaa mindiya soo qaadanaynaa burkeeni si adiga jeceshahay u jaro sida adiga jeceshahay u jaro waxa sameeynaa waxaan ku rahay cabirka adiga rabtid jaro dhowr xabba ka dhiga 4 ka dhig 5 ka dhig 6 ka dhig wixii ku noqoto adiga burka meesha markaas ku yaala jar markaa jarjartid meesha aad labada xabba ay ku taala ka soo qaado bur ku taaso soo hadda maxaan ku rahay maxaa sameeynaa cajiinka haddana mar kale aan siinayna waqti uu ku nasto hore hadda ka dubto wuxuu ka noqonayaa adeeg uu ka noqonayaa soo waxa loo baahan yahay marka cajiinkaada in uu ku noqdo sabaayad jilicsan hadaarta inaad samaysatid waa in maxaan ku rahdaa burka aad siisaa waqti uu ku nasto ilaa maxaan ku haddana sidii waxaa yeelaynaa xabadkii labaada sidii naftii hore aan yeelna sameynaynaa soo qaadna subagiyaa marinay xabadkii kala kor saarnay hadda waa fidinaynaa asna sidii dariiqii hore aan marna naftigiisa marayna bur yara kor kaga daadsanayna hadda maxaan ku rahdaa haddana waa soo noqonaynaa waa soo fidsanaynaa cajiinkeeni si isla eg aan u fidsanaynaa haddaa rabtid adi marka hore cajiinka ha adkeenin aad ha adkeenin intaan kasii jilci kadib gacanta isticmaal saliidna meesha marso haddaa rabtidna qoriga burka isticmaal maxaan ku rahdaa laakiin waa inuu cajiinka yaada ahaadaa mid aad u jilicsan sabaayad anaga Soomaali dhigaala laga dhigi jiray way ka halaabaysa meesha ku oleysaa wadka iyo sabaayad soo dadka safar markay aadaan maxaan ku rahdaa oo waqti uu imaanay la ogeyn hadduu qofka baawurka saqdhax uu iska yimaasana qofkii maanta dhan gaajona sabaayad wadka loo sii diyaariyaa maxaan ku rahdaa oo cuno dadka martida lagu soo dhaweyn jiray samaha sawaayada wadka la soo diyaaray marka waxa yani oo wadankeena laga isticmaali jiray waa ina aanan ilaabin cuntooyinka wadankeena aan ku isticmaali jiray waa ina number 1 aan ka dhignaa hadda tii naftigeeda eedana sameynay subaga aan geesaha ka dhaxda ka marinay soo hadda waxa sameynayna markaasna sidii u soo laabaynaa waa la laabaynaa subagaada ku saabsan meesha subaga isticmaalaysidna ku sheegay saliida daaratid isticmaal aday kugu xiran tahay waxa isticmaalaysid soo qofkan wuxuu isticmaalaya muhiim ah waxa waaye example bas ka soo qaada tusaale ka soo qaadanay bas tusaale kaliya ka soo qaadanaysa soo laakiin adiga waxa rabtid waa isticmaali kartaa dhinacaas ka soo laab dhag haddana qabo dhankii kale ka soo laab waa ka haddana maxaan ku rahdaa isla sim hadduu kaa kala dheeraado kan dhinacan usoo durjisi midka kale uu kula ekaado batarka soo qaad dhinacan ka mari gab kusoo simar kusoo dabool waa ka bur yar haddana ku shubaynaa gab aas hadduu waa dabooleynaa marka maxaa sameynaynaa markaa isku daboolna cajiinkii waa jarjaraynaa marka hadda shaqadeeni waa gogoynaynaa in isleega ka soo dhigna waa kaasa hadda shaqadii kala bilaabanaysa maxaa marka step
3 waxa waaye step 1 kana waa cajiinka soo cajiinay. Step 2 maxaan ku raahdaa waa fidinay waa diyaarinay waa dhignay. Step 3 waxa waaye marka hadda jikada wuxuu aadayaa dabku aadayaa waa dubeynaa marka sabaayadii hadda dubeynaa birtii dabka soo saartay oo ii kulaanayso sabaayadii soo qaaday waa kala bixinayaa waxaana u kala bixinaysaa geesaha sember iska ilaali geesaha inay ka burburato si isla eg u wada cajiinka fidi ilaa iyo dhaxda ilaa iyo geeska intay isla ekaanayso inta dhaxda ka fidisid geesaha ayaa ka burburin soo geesaha hadhow ceeriin oo ka noqonaya dhaxda ayuu bislaanayso waa ina cajiinkaada wada simtaa si isla eg dabka saaranay inta kasii maxaan ku raahdaa kululaanayso oo taas kasii duweyno xabadka kala sii diyaarsanayna meesha ugu tagaynaa kiya markaa waxaa sameynaynaa saliid ama maxaan ku raahdaa butter aan marinaynaa saar gadi dhinaca kale haddana ka mari haddana dhinaca kale u gadi maxaan ku raahdaa si tartiib deb daciif ahna ku dub dabka ha ka badanin dabka haddaa ka badisid waxaa dhacayo in ay cajiinkii dhaqsi uu sabaayadii ay maxaan ku raahdaa dhaqsi ay qiiqda birtiyo maxaan ku raahdaa ay ka gubato soo taasna lama rabo Soomaa waa ina wax qurux badan aan meesha ka helnaa maxaan sameynaynaa si tartiib ah u doonaynaa wax yar dabkan waxa u geynaynaa maxaan ku raahdaa dab yar daciif ah u geynaynaa waa sugaynaa hadda adiga degdegsan tahay maxaan ku raahdaa laba bir soo saaro ilan jikada sember waa 4 god Soomaa laba god kamid ah hadaad isticmaal adaa iska leh maxaan ku raahdaa laakiinse sabaayadaada waqti si tartiib ha u gaduudato waa ujeedin hadda si ku soo baxday maasha Allah qurux maxaan ku raahdaa caadi ma ahana ku dhashay sabaydan saabay tijaabiyo sabayd yaro jilicsan maxaan ku raahdaa aad u weyneen amaante kaali iska arag halkaas hadana xabadkii kala saarnay tii kala hadana aadayna asoo fidinayna sama qatar qurux inuu noqotaan ku dhahay lagama sheegi karo eedan kor waxay ka noqotaan ku dhahay brown ka noqoto soo gaduudshaalkana yani waxay kugu xiran tahay aday kugu xiran tahay hadaarti sidan kaga qaad hadaarti dabka ku sii hay oo waxay kadib marka isleeda walle ta intaan ka badan ma sii gaduudan kartid ka qaad hadaartidna intaan sii gaduudi adigu ku anficaysaa waa kaasa dhinaca kale hadana maxaan ku raahdaa aan u gadireynaa waxa rabtid ku cun marka adigu taala hadaartid inta aydo sideeda uusti gasho kula laba koob shaah koob kafee ku cab enaf ashal ma uu noqonaysa hadaartid sabaa waxa ku cun maxaa la dhihi jiray oodkac ku cun hadaartid ku cun maxaan ku raahdaa maraq hadaartid ku cun suqaar hadaartid ku cun spinach soo karso kale cost soo karso ku cun wax dalac bilaash u karso fuul u karso wax ay ka diidaysa malahan waa kaasa qurux taasay noqota ku dhaceedana kor iyo hoos gaduud ee ka noqotay waa kaasa dhaaka marka hadda asxaabi waa soo dhameynay karaa la ahaada nalka xogo igu dheeraaday maxaan ku raahdaa mar damba arkay oo ay sheekada gabagaba tahay maxaan ku raahdaa laakiin waa kaasa sabaydeeni inta saxaabay noo soo noqotay hadda waa baroobeynayna marka baroobeynayna waa kaasa eedan waa kaasa ma jajabayso umjeeda eedan waxa malaysaa way jircanta eedan safta waaye soo maxaan ku raahdaa cajiin adagna ma aha qafiif eedan soo hadda marka waxa ku dareemaysaa hadii sabayda ay ahayd sabayd adeeg ku soo qasanay markaas isku waxayno qaybta kore gaduudka dhan ka daadan lahaa dhulka ku hooban lahaa laakiin hadda fiiri waa kaasa eedan dabaqyo leedahay marka kala jartid dhaxda inta soo xaba inta maroo aan laabnay si automatic ugu soo bixisa ina dhowr mar la soo laabo la soo xisho wala dareemay marka maxaan ku raahdaa asxaabe maanta sabaydaas aan haynay maxaan ku raahdaa intaan video maxaan ku raahdaa midkan la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh please subscribe samee maxaan ku raahdaa rukumo channelka haddaa ka heshay si aad ula socotid video